caawa waxaa aanu samaynay olole runtii dib loogu banaynayo waddadii go-aanka aynu ka gaadhnay ee laga mamnuucay in gaari la dhigto iyo sidoo kale in lagu ganacsado. shacabka reer Hargeysa waxaan u sheegayaa waa inaynu noqonnaa ummad wanaagsan oo awaamiirta xukuumaddooda iyo dowladdooda hoose ka soo baxaysa u dhaga nugul. waa dantaada, waa wanaaggaaga, waa bilicda magaaladaada. waxay intaas oo mas-uul oo caawa halkaa fadhiya dhammaan guddoomiyaashii degmooyinka, maayir ku-xigeenkii, xildhibaano, taliyaashii ciidamada waxay caawa halkaa hortaada u fadhiyaan ee ololahana u soo sameeyeen ogeysiiskana u duubayaan in lagugu wargeliyo oo lagu siiyo ogeysiis kama dambaysa. waddada jidka wadnaha laga soo bilaabo saldhigga dhexe goolada ku taala ranobaadka ku yaala ilaa ranobaadka mise jaamaca waxaa laga dhigay waddo baabuur mara mooyaane aan baabuur la dhigan karin, lagu ganacsan karin. magaalada Hargeysa qorshaha loo dejiyey ee dib loogu soo celinaya bilicda, dib loogu nidaaminaya caasimadda, waddadaas waxay noqotay waddada dadku ay iyaga oo lugeynaya ka adeeganayaan. adduunka oo dhan way jirtaa waddooyin laga mamnuucay baabuur in lagu baarkin karayo. waddadaasi waa ogeysiis la jecelo dadkayga aanu jecel lahay aynu doonayno in awaamiirta aanu naga soo baxay inuu magaaladooda ugu dhisan inay u dhaganuglaadaan. waddadaasi waxaa laga dhigay waddo aan baabuur loo ogolayn la dhigo. waxaan rajaynaynaa inaad u dhaganuglaato ogeysiiska beri laga bilaabo tallaabo sharciga waafaqsan oo xeerarku noo jideeyeen ayaa lagaa qaadi doonaa. muwaadin baa tahay, inaanu ku ilaalinaanu jecel lahay, ogeysiis baad xaq noogu leedahay. caawa maqal ogeysiiskan maayir ku-xigeen, guddoomiyaal degmo, taliyayaal ciidan, cidi aanay u kala hadhin maqal. waddadaa waa laga mamnuucay in baabuur la dhigto, waa laga mamnuucay in baabuur la dhigto, waa laga mamnuucay in lagu ganacsado. ogeysiiska aan ku siinayna waxa weeye mid kama dambaysa weeye. beri markuu waagu baryo dhammaan cid kastoo shaqadaas ama waajib ka saarayay waddadaasi inay saa ahaato amar bay ku qabaan. ciidamada bilayska, taraafikada, shaqaalaha dowladda hoose dhammaan waxay amar ku qabaan waddadaasi inay saa ahaato. dadka meheradaha ku leh beri laga bilaabo waxaa ku imanaya shaqaalihii dowladda hoose, waxaana dushaada ahaan doona ganaaxa kugu waajibay haddaad hortaada soo dhigto ganacsi ama gaadhigaaga aad dhigato meherdaada horteeda. waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala, dadkayga dhib lama jeclin, waxaan rajaynayaa in amarkaas iyo ogeysiiskaasi uu dhegihiina galo una hoggaansataan. waddadaasina inoo noqoto waddo wanaagsan oo qurux badan oo dadku ay iska mari karaan iyada oo qurux badan. dhismaayo hadda ka socda, daamurkii baa la saarayaa, leyr baa lagu xidhayaa. waxaan doonaynaa inaanu intaa ka dhigno meel qurux badan oo dadku ay iska lugeeyaan. insha allahu tacaala waxaanu ilaahay ka baryaynaa inaynu ku guulaysano ahdaafta iyo ujeeddooyinka aynu ka leenahay dib u soo celinta bilicda caasimadda iyo dib u nidaaminta caasimadda labadaba. qof kasta oo ka hor yimaada hawshaa ballaadhan ee la wadana sharcigaanu la tigsanaynaa, sharcigaanu horgeynaynaa. xeerarku ganaaxyada ay ku waajibayn, xadhigyada ku waajibayna waa la marinaya insha allahu tacaala.